waxaan rabaa inaan update yar idinka siiyo xaaladda coronavirus ee ay marayso wadanka. Tiradii ugu dambeysay ee xalay la shaaciyay waxay ahayd in cudurka lagu arkay laga baaray lana xaqiijiyay 286 ruux. ilaa hadda waxaa ka buskooday ilaa iyo 6 qofood. waxaa dhintay allaha u naxariistay 14 qof oo shalay kaliya ay geeriyootay 6 qof. ilaahay ha u naxariisto, ilaahay jannada ha ka waraabiyo. saad u jeedaan cudurkii bulshada dhexdeeda waa ku sii fidaya. waxaan mar walba codsanaynaa, aan ku celcelinaynaa, aan bulshadeena weyn u sheegaynaa in taxadarka kor loo qaado. waxaa soo galaya bishii Ramadaan, ilaahay hadduu yiraaho way naga xigto maalin kaliya inaan marka ugu horeyso horta alla ka cabsiga iyo ducada aan badino, ilaahayna garab galo, ilaahay aan barino, ilaahay aan u dhawaano. marka xigta mar walba lagu taxadaro in sidii la isaga xakameyn la isaga ilaalin lahaa cudurka aan ka wada shaqeyno. waa mas'uuliyad saaran qof walba oo Soomaali ah, bani aadan ah. adduunka oo dhan wuxuu ugu fidayaa si aan caadi ahayn, aad u fudud. ilaahay ha noo dhib yareeyo. waxaan nahay dad nugul, dad badan oo xanuunsan ay ku jiraan, dad waayeello ay ku jiraan. soonkana qofka xoogaa uu daciifi karo maadaama uu waqti badan gaajoonayo waxna cabaynin. marka waxaan ku dhiirigelinaynaa bulshadeena mar walba in la badiyo taxadarka, inaanan meelaha buuqa la isugu imaanin, in gacmaha si fiican ooma loogu dhaqo iyo saabuun wixii markaas qofka uu haysto. mar walba lagu taxadaro oo lagu boorisanaado in maaragtay nadaafadda kor loo qaado, in aan bannaanka haddii aysan qofka dan weyn jirin guriga uu ku xakamaysnaado, in haddii qofka uu dareemo calaamadihii cudurka uu wacan karo nambarka 449 lagana wacyigelin karo, lanana waanin karo. isbitaal Martiini waa ku celcelinaynaa, waxaa lagu sameeyaa takhaatiir ayaa joogta. qofka isaga shakiyo la geyn doono haddii alla idmo, laga qaadi doono analysiska resultska loo diri doono laabka, kadibna la xaqiijin doono. inta u dhaxaysa takhaatiirta waxay ku boorinaysaa cid walba oo dareenta in xanuunka ay calaamadihii leedahay siduu u dhaqmi lahaa iyo meeshuu adeega ka raadsan lahaa. waxaan ka codsanaynaa isbitaalada wadanka guud ahaan inay u sahlaan qofkii taga inay yacni baaraan. waxaan annaga isku dayaynaa dawlad ahaan, wasaaradda caafimaad ahaan, wax allaala wixii qalab oo aan hayno oo dharka la xirto marka qofka noocaas oo kale looga shakiyo la daaweynayo, PPE la leeyahay, iyo wixii maskara ah, wixii gloves ah oo annaga aan hayno isbitaalada waaweyn inaan wax ka siino si iyaga naftirkooda aan u badbaadino. sababtoo ah waa waajibna wada saaran qofka jiran in aan siino adeegii caafimaad uu soo dalbaday. qofka haddii looga shakiyana la soo waca meelaha nambarada la dhigay, looga faa'iideeyo, qofkina markaas uu helo adeegii khaaska ah loogu talagalay ee ka hortagga cudurka. waajibna wada saaran waa. ilaahay hana kaalmeeyo, aan wada ducaysanno. waxaan ilaahay ka magan galaynaa dhibkiisa iyo aafadiisa.